ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن مانتل كهدلايا هيستوري دولكو يال دغمدا شبيس حافظة صنعاء دولكاس oo aan degeneyna ilaa iyo 8 generation dokumentiga milkigiisana 52 sano jiro waa dhul dimanyaal ah waa kana dokumentiga waxaan idin kaaga bilaabayaa inuu ka bilowday dokumentigan 1900 rekiisada ugu horeyso 63 waaye warqadan waa Corriere della Soomaaliya waa joornaalka Talyaaniga oo 63 soo baxay hooyaday waa tan halkaas ugu qoranta magaceeda ma fahamteen joornaalka waxa way faafinta rasmiga ah dhulka dimanyaalaha 30 biriya joornaalka lagu faafiyaa si ay qofta dhibaato ka qabto oo dhulkaas qofta kale la sheeganayso uu soo hadasho 63 ilaa hadda 53 sano laga jooga cid soo ma sheegan dhulkeen hadda la soo sheegtay Abu Bakr Umar dan warqad u sameystay faguurti abiisadan dhaxdeed inuu soo sheegtay qofta warka qabto tan waa rikiistada bulletino official 63 waa لحدن يسدحدي واي بريمري كيست واي او جورنالك لو سو قري لحدن يسدحدي واي تن بلاني متري واي مابك دولك واي حافظها انت جيسا نغا خكتو تن باغمنت ديمانيال واي متر كوادرات لعقت لو غداي واي دولك دولده لوغا غدا متر كوادرات باغمنت متر كوادرات واي باغمت متر كوادرات واي تن بروجات بروفيسيونال دها لحدن اسيادي سو بخا تن بروجات بروفات لها ايدنا تن راعسنته 1915 سبتمبر 1968 واي وكان بروتوكول نمبر اي لهداي انجينير كاس طلياني اه صحيح واغاس انجينير طلياني اه جوغي قيبت الديماني وسارده هوله غود واي tan waxa qoray taliyaha degmada shibisa qoray oo cadeynay dhulkeena ina aniga leenahay magaciisa warqadiisa halkaas ay ku feermaaraysan tahay taliyaha waxa la yiraahdaa Yusuf Hassan Major Abdullah Yusuf ala dhaha واتاليا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن مانتل كهدلايا هيستوري دولكو يال دغمدا شبيس حافظة صنعاء دولكاس oo aan degeneyna ilaa iyo 8 generation dokumentiga milkigiisana 52 sano jiro waa dhul dimanyaal ah waa kana dokumentiga waxaan idin kaaga bilaabayaa inuu ka bilowday dokumentigan 1900 rekiisada ugu horeyso 63 waaye waa Corriere della Soomaaliya waa Corriere della Soomaaliya Talyaaniga ku qoran 1963 waxa ku soo xigay Bilanimitri Bravato Borgetta Abrobagamento Dimanial waaye metro quadrato warqadis arkaysaan Borgetta Abrovazione waaye Progetto Abrovazione واي فاتاسا طليانيا ku qoran waxa soo dhan ma bilanimetrio 25 fadhi ka bacdi 25 fadhi ka bacdi ayaa dhulkaas loo ogolaado hooyaday waa 63 barbaseeskiisa bilowday طليانيا ku wada qoran waanta bilanimetrio Bravato واي بربال كونسينيا او كوريو متر كوادرات او غدان yahay dhulkan anaga kaliya manaan dhulkan waxa laga kiciyay 8 cidood oo Soomaali ah oo dokumentiga aniga aan haysto badigood ay wada haystaan oo ah dimanyaal dhulka dimanyaalaha waxaan la hadlaa aqoonyahanka Soomaaliyeed in intii fahmayso dhulka dimanyaalaha sharci gooni ah uu leeyahay
ووحا أدي ملكية هوليدا وبربيتا بريفات واي متر كوادرات وكدنيا شخص قادن كرو مجرو marka dhul noocaas ah oo la degan yahay guriyo ku dhisan yihiin taariikhiisa 53 sano ah wiilada ay soo horeeyay 61 codsadeen dhulkaas oo la siiyo jiiraanka igu dhagan ah maanta waxa ilaahay xukmay bishii April 2013 Abuukar Cumar Cadaan in oo soo watash 400 oo ciidanka dawladda oo ah booliiska wili hubeysan aad iyo aad u hubeysan iyo ciidamo beeleed isku daran in dhulkeena weer lagu soo qaaday wax warrant oo nalisiye ayna jirin maxkamad inta la istaagay darajada koobaad darajada labaad darajada saddexaad wax ay xukunta aanan jirin markaan wadankan imaano buuqa aanan maqalnayn tan dhulkeen dhibaataas ku dhicin waa u tagna tarsan waa la hadalnay 8 dhinac dokumentigeena wuu arkay ma fahamta marba dhinac u jeestay xaaji Abuukar maxaan sameeyaa dadkan dhulka dokumenti ay leeyimideen anigu oo soo jeesa maxaan sameeyaa xaajigu waa siiye hay'adda kali tarsan shaqeynaysa adiga waa indha dhulkan muran ma u baahno dhul dhulka dimaniyaal siis wasaaradda hawlaha guud ku shaqale idib u dhiska tarsan si jaas oo nooga baxay fidnadina waxay ku dhamaatay in dhulkayna ciidanka asaga hogaaminay maanta la jiibanay asaga in liira Cabdikaafi Salaati Luulo dhinta hadda waxa la jira General Maalin liira waxa la jira in la yiraahdo Cali Hebel Kaahana Neesfa Qaabdaran Ali Wasaa'il lahay intaas aanay ka aqoonsaday in liira General Maalin subax salaada dagaal nagu soo qaado wax warrant ma aysan jirin guriyeen waa la jijibiyay 10 tarbiila loo soo qaatay hadaba Abuukar Cumar Cadaan hal saac warrant looma gooynin dad uu dilay dad uu laayay falaashan hayna amaalinta duubnay dadkii la dhaawacay anug saqiir oo ku dhinta meesha ma fahamta hal sano 8 bilood wixii ka dhacay cidib u fiirsan mala waa hal saac warrant lagu ma sameeyo Abuukar investigation hal saac lagu ma sameeyo maxaa sameeyay mala dhixin ani muwaadin Soomaaliyeed ah 400 ciidan ah leeyma soo sii kara mana soo wada kari hal xaba isgarada markan soo wadanay la isiinay dib maxaa kugu dhacay weydina waa maxay Abuukar Cumar Cadaan wuxuu ka sameeyay adaba ummadda Soomaaliyeed aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee yaqaaniin dhulka dimaniyaal qofta xuquuqda ay u leedahay mashaariiqda Soomaaliyeed culumaa u diinka haqay baadilka kala soo ummadda Soomaaliyeed inay kala qabtaan loogu talagalay waxaan ku codsanaynaa in arrimahayna ay si gooni u fiiriyaan inta kale ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan xoolahooda la haysto guryahooda la haysto milkiyadooda la haysto wix 25 sano ka hor xoolahooda la dhacay waa la dhacay dawladda Xasan Sheekh oo ah dawlad la aqoonsado oo xaqa dadka Soomaaliyeed ay aqoonsadeen ay naftooda dhaan waa dawladda isu dhiibi karno oo la aaminsan yahay maanta horteeda la igu dhacay Abuukar Cumar Cadaan iyo walaalkiis Maxamuud Cumar Cadaan iyo ciidanka dawladda ay wateen ma aqaan cid soo siisaanay ma aqaan cid hawshan ka dambaysa laakiin Abuukar Cumar Cadaan kaliya kuma ahan hawshan haqan u leeyahay in la isoo qabto Abuukar Cumar Cadaan 18 ciidan oo family guriyooda dhulka dhigay Cumar Cadaan in la soo qabo maxkamad soo istaajiyay lama soo istaajin loo yaraan sameeyay hal sano soo jooga Soomaaliya loo yaraan sameeyay loo yareeyay maxkamadda isbaara loo dhigtay qaybta darajada koobaad gobolka Banaadir dacwadan ma soconayna sabab maxay tahay ma soconayso muwaadin Soomaaliyeed ah muwaadiniin Soomaali miyaanan hal qulayna diin la dil xooleyna la dhacay in dacwadiina la furo maya waalidiida loo yareeyay meesha si taagan yihiin waxba ma qaban gobolka wasaaradda arrimaha gudaha wax qornay jawaab ma laha gobolka booliiska gobolka Banaadir aan qornay jawaab ma laha ra'iisul wasaaraha u qornay jawaab ma laha wax kasta isbaara ilbaab kasta noogu la dhigtay 3 biloodan madaxtooyada horteeda taagnay banaan baxaan sameeynay hal mas'uul oo noo soo baxay oo maxay idin ku dhacay yirnaa muwaadiniin Soomaaliyeed manihin miya maxaan nahay Abuukar Cumar Cadaan dawlad miya 400 oo ciidan ah oo la soo siiyay Abuukar Cumar Cadaan oo nagu baabi'iyay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka in guddi loo saaro cid ciidanka soo siisa Abuukar Cumar Cadaan waa in guddi loo saara 250 baarlamaanka ku jiro oo ummadda Soomaaliyeed u dhaarteen dhiigooda iyo xoolahooda inay badbaadiyaan ma aan in kursi mashquul lagu noqdaa ay siyaasadda ummadda Soomaaliyeed waxay hoostiina kula dhacay waa inay ogaatiin magaalada Xamar hadaan tagnan waan la soo bursadaa nafteena riskiya la geliya dacwada fursadan waa naga hor istaaga Abuukar Cumar Cadaan wadanka inuu leeyahay iyo anaga muwaadiniin Soomaaliyeed inaan nahay labadaas kala saaraysiin golaha shacabka 250 waa inay guddi u saaraan arinteena cadaalad ahaan u fiiriyaan mid lamaad waxaan u sheegayaa hay'adaha oo maalqabeennada ah kambaniyada oo la rabo dhulkaas in la yiraahdo dhista
oo la rabo inay dhisaan iska maalgeliyaan amba hay'ada ajaanib ha aadeen inay ka waantoobaan ay ka cararaan proprietà privata inta tal documenti metro quadrato u gadana inta yaalo signor cidii doonta ayagoo original aan la hortaga la falaashin waa haya hal xaban 10 ka dhig maalintii dhibaatada u geysanay Abu Bakr Umar Cadaan ma fahamteen cid alla cidii maalgelin iskaga sameeyso dhulkaas 30 dabaqadii laga dhigo ilaa 100 dabaqood anaga iska dhulkaan leena waa leenahay Abu Bakr Umar Cadaan adiga maxaa haysataa warqada been oo miiskoosiisa lagu soo suubiyaa haysataa cidii ku suubisay ida ka hadli doonte wadankan cadaalad waa imaanaysa waxaan huwa maanta inay cadaalad imaanayso wadankaas taasan huwa horta shirka imaadaba inay imaanayso cadeemada ahayso dawladda ma gudbisay waa u gudbiye warqadan waa haysta ilaa madaxweynaha u gudbin warqadahan gobolka banaadir u gudbin inta tarsan joogo waxa laga ma qaban wasaaradda arrimaha guud warqadan u qornay abukaatiyalkeena dacwadu ku biyo naga wada hayeen dokumentiga maxkamadda darajada koobaad ay dhaafi waayeen labadayna abukaat xajijiin walaashay Allah u naxariisiyo aniga abukaat noo yihiin inta kalena waa muwaadiniin Soomaaliyeed wax jawaab kama aanan helin 6 biloodan taagnaa tabeele intaan qaatay madaxtooyada irdeed cid ila hadasho malaha inay ugu yimideen heer Umar Cadaan ay ugu dileen asay dheenaaya bilaashad meesha u qaylinaysa ma fahamtay markaad isqartay adiga iyo Abu Bakr Umar Cadaan يعني دولكي محو قدوده يعني محو ليه يعني الدولة أنا صحيح مثل لهان شكل قدوده أنا ما كوجو رئيس أن ترسن هرتي سفر يسن وحور دارن كجتي ترسن حير دتكو كجتي أنت هكينا نحن مودين الصومالية ده نهاية أنا قنتن سنة إلا قنتن إلا بس إنه دوكمنت أنا هاي سناي بقول قنتن سنة دجان وهاي سناي دتك قرمين حقيقي ماذا كان عليه مو سويتين ترسن كان مريهن دتك مربو سو جستا حاجه وكران ددكو دوكمنتي يليمد maxaan sameeyaa mar anagu leeyahay xaajigu waa siiyay maxaan sameeyaa marba dhinac u jeesto muwaadin Soomaaliyeed inuu waxa sameeyaa meeshan dokumenti ayaal dokumenti adduunka lagu kala baxaa muran ma u baahna dhulkeen muran ma u baahno ee baadilana saaran taasi ma dhig kara marka asiga si tarsan dhulka Abu Bakr Umar dhul tarsan kama baxsan absolutely cidii ka dambeysana ma aqaan hada tarsan wali meesha ma joogo waa ka tag Abu Bakr Umar Cadaan qolkii dhex fadhaa waa dhisto haya ma laga celiyo haya hal saac wadanka ma wada xukumo tarsan ciidanka amniga oo wadanka booliiska Soomaaliyeed way waxana baabiyoon dil 400 toddoba biriya u shaqeynayeen aniga hal xaba asgari haday maanta isoo raaci raameen muwaadin Soomaaliyeed waa xaqan leh Abu Bakr Umar Cadaan ma wadanka iga xigo yaa soo si 400 ciidana investigation واجيني وزارة الرماية جودها جيني قدوميها قبل كبنادر وأتقني أنا مجوج صوماليا دتك جوجيا أتقي سدح مري أتقين الباب كيسكسون قناين جودك دعوين كأتقوير جودك دعوين كذا أتقن هذي لو تقن وحيد قبل كهلته ما فهمت مربدين عنو دعوه هنا anyway دول كان وحشة قاي كل هذا ماله دولة هوس دول كان وادي منياله متر كوجو رئيس الإسلامي إلى شام بقول جودها شرعية والي قانا دتك إنجيل صومالي دتك معناه دول كدي منيالك إلى شام بقول متر أو جودها دول كستبع دول صار دولة جودة سكر سياريال اسكو حد جدبن حد جدب واي وحن دول كان لنا وسداد بقول متر اسكو وراك ما فهمتي انت كلام سيدا سو كل عيد نقول دغن سيدو كل عيد كل سيدو نقول دغن وا دول دمنياله كل وادي منياله متر كوادرات وغدن ددك عيدا اسكال ما فهمت انت دكمنت اسكال maan انت كلا نقول ayagan sharciga ku deganyiin waa 18 ciidood oo Soomaali ah oo dhulka lagu jiido la dilay Abu Bakr Umar Cadaan xaqan u leeyahay in la soo qabto weerarka oo Abu Bakr Cadaan dhulkaas ku soo qado goormu dhacay wuxuu dhacay weerarkaas 2013 Abriil oo dhacay ilaa 30 Abriil oo socday habeen iyo maalin ka bacdi mas'uul ay yimiday habeen madow imaaday iyadoo la dhisay oo joojiyo habeen madow dhisnay dhulkaas habeen iyo maalin la dhisay mas'uul ay yimid mu ogaaniga diabolic way ma sheegi karo qoftaas way ma dhihi kar nin baa imaada mas'uul uu ka joojiyo cidaas way ma dhihi kar warqad lagu jibiyo ma hayno dhulkaas abukaatiyalkeen hal sano iyo bari dacwo show haayeen warqad dhulkeen lagu jibiyo kaliyan weysana sharci lagu jibi sharci lagu joojiyna ma hayno adigu wax dawlad aad u maray Abu Bakr Cadaan si laakiin moola koontay Abu Bakr Umar Cadaan si gooni moola hadashay si gooni maalinta isku aragnay madax guriga tarsana isku keenay dambeysay iyo maalin Maxamuud Umar Cadaan iyo ninka la yiraahdo barxo ay ugu yimideen madaxtooyada ay ugu dileen marxaati cadaan haysta Abu Bakr Umar Cadaan Maxamuud Umar Cadaan inuu meeshii ugu yimid ugu caaye flash telephone laga duubo waa lahaaya barxo inuu meeshii ugu yimid iyo asaga oo dilay barxo soo tagay labadooda is agtagnayeen microphone-ka ay u qaateen madax iyo tumeen marxaati noolaan lahaaya
oo live ah oo markaati kici karto 3 mar isku day xamrin dhibaatin iigu geysto markii ugu dambeysay madaxtooyada irideedan tagno ku banaan bixina baawarku intuu joojiyo soo degta ma fahamta albaabka madaxtooyada intaan meesha taagnay 10 mar oo galay ku soo baxay ma fahamta intaas madaxweynaha inaan la kulanaan rabnay in qof noola soo diro lama hadlin maxaa idin ku dhacay ilaa ay hadda Abuukar Cumar Cadaan jooq loo madin anaga oqtada nagu jirtaaba waxay ma Abuukar dawlad mas muwaadiniinta Soomaaliya dawladdu waa u simantahay sidee ku dhacday in warranty loo gooy waa nin intaas dhibaato geystay waxba loo ma qabanin waxba laga ma qabanin ma naqaan anaga toon badan qof kasto Soomaaliyeed oo dhageensanaysa ayaa toon badan gili karo in nin hal sano 8 bilood ka hor xaafad dhan jabsaday ee dhaxda ka degan ya ee aan juuq loo dhihin qof kasta oo Soomaaliyeed caawi dhageensanaysa ka sikarayso arintan inay arin culus tahay laakiin Abuukar Cumar Cadaan kuwa gadaalkaas oo riixaayo waxay rabaan ha noqdaan meel ay ku geynayaan ma jirto waxaan hogaamiiska wada hadalka cadaalad walaashii Jiina Ibrahim Allah una xariisto way dhimataa hadda marxuun waay dhulkan dacwiis wuxuu ugu timaatay meel fog 92 sano jirtay ma fahamtay jiiraankayga ahayd macruufkayna ahayd meel lagu wada koray ma fahamtay goof u ahay dhulkaas goof ku soo bilaabanay awowayaalkayna iska lahay dhul dimanyaal laga dhigay ma fahamtay qofta ugu dokumentiga da'da weyn leeyahay 1961 Jiina Ismaan waxa wadankan cadaalad darrada ka dhacday idin sheega gobolka Banaadir anagoo joogno ee Dajiina waa dhimatay falaashan ka tuuba ay ku cadeynaysa dalkan idaacadaha xamarna way ka sheegtay in gobolka anagoo joogno nagala waday nagala kaxeeyo Cabdi Kaafi Salaati lowlay ciidan oo wato oo maqaayo ku taal New Ocean badda xeebta liido oo uu geeyay Abuukar Cumar Cadaan asagoo dhahayo dhulka ma idinka maroojinaa ma idinka qaadnaa tarsan waa idinka qaaday mise xaajiga u saxiixaysiin wax yar oo lacag haleydin siina xaajiga waxaan ku keenayna dhulka u saxiixid wax yar oo lacag ku siiyo qofti Soomaaliyeed ugu dacwaysa falaashan ka ay Dajiino ani mu turjubaanahay cadeynayso sargaal Soomaaliyeed ciidan wato inuu qof intuu ku aftuubo ninka dimbilaha ay gurigiisa geeyo oo yiraahdo u saxiix dhulka Allah u naxariisto labada caawa ayaga is jiro Cabdi Kaafin Allah u naxariisto ee Dajiinana Allah u naxariisto Abuukar Cumar Cadaan ma aqaan waxa uu yahay aniga cid ka dambaysa arintan waa mahadsantihiin ugu dambeyn maxaa dawladda federaalka ugu baaqaysaa ugu dambeystii dawladda federaalka waxaan ugu baaqayaa inay dabagal ku sameyso masiibadan cid ka dambayso oo laga fadhi la yahay oo dibadda iyo gudaha ku hurdi la'naha inay soo qabato dawladda Soomaaliyeed waxay u dhaaratay kutuba gacanta saarteen 10 ugu dambaysa bisha Arafaa lagu jira bisha cadaaladda iyo xeerka iyo dhaqanka iyo in dambiga la iska dhaqo waay qof aan dambi ka galay ma jirto qofta wad buruuf cad aan u haya qof kastaba waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanaa inay ka sheexaan wixii faraha kula jiro meeshan ay ka sheexaan ay dib ugu noqdaan cadaaladana Abuukar Cumar Cadaan keenan ay hor keenan taas ayuu muwaadin kasto caawi fiirsanay oo ku hurdaya in cadaalad wadanka ka dhacday laakiin hadii cadaalad daradan imid la mid ay sii socoto waa la idin ka sii fogaana muwaadiniinta Soomaaliyeed waa idin ka sii fogaanaysaa raali ahaada